waxaa maanta dib u soo noqonaya tartanka qaramada Yurub waxaana la ciyaarayaa kulanka hore ee nus-dhammaadka koobka Euro 2024 oo ay ku ballansan yihiin camaaliqooyinka waaweyn ee Spain iyo Faransiiska kuwaas oo ku ciyaari doona gegada Allianz Arena ee magaalada weyn ee Munich. dalka Spain ayaa ilaa iminka shitay tartanka qaramada Yurub iyadoo laga garan karo inay wada adkaadeen dhammaanba shantii kulan ee koobkan waxaana sidoo kale dhaliyeen goolasha ugu badan ee tartankan laga dhaliyay oo ah 11 yeelkeeda casaawayaasha la Furia Roja waxaa ku hor go'an xulka difaaca bakhiilka ah leh ee Faransiiska kaasoo walow bandhigiisa aan aad loogu bagin misna nus-dhammaadka taagan isaga oo aan 4 kulan wax gool ah laga dhalinin ilaa imika. xulka la blue ayaana maanka ku haya inuu soo tiigsado finalkii afraad ee tartan caalami ah 8 sanadood ee tagay taasoo celcelis ahaan ka dhigan hal final 2 sanadoodba. La Roja laftoodu inay adag yihiin waxa kale oo lagu muujin karaa inay tartanka ka cayriyeen xulkii martigelinayay ee Germany oo sidoo kale ah xul aad u weyn balse Faransiiska laftoodu waxa ay tartanka ka direen dalka Portugal oo ay gool kulaad kaga itaal roonaadeen. bilowgii haddaan idin xusuusiyana Faransiisku waxay kaalinta labaad ka galeen groupka D oo ay ka shaqaysteen ilaa 5 dhibcood 3 kulan oo ay dheeleen halka dalka Spain ay xoog ku qabsadeen groupka B oo lagu tilmaami karo groupkii dhimashada. haddii aanu dhanka diiwaanka eegnana dalalkan waaweyn ee Spain iyo Faransiisku waxa ay kulmeen 5 jeer marka la eego tartamada rasmiga ah ee waaweyn. Faransiiska ayaana gacanta sare leh oo badiyay 3 ka tirsan 4 kulan ee ugu horeeyay halka midkood ay Spain badisay midna waa barbaro. kulankan Spain iyo Faransiisku waa midka saddexaad ee heer kasta laga ciyaaray koobka adduunka iyo koobka qaramada Yurub yacni min group bugbax rubuc dhamaad nus dhamaad ilaa final. labada kale waa Talyaaniga iyo Spain iyo Ingiriiska iyo Germany. Spain sidii aanu soo xusnay waa dalka ilaa imika badiyay dhammaan shantii kulan ee uu ciyaaray Euro 2024 balse waxaa hortaagan turaanturo taariikhi ah waayo abid ma dhicin xul wada badiyay 6 kulan oo xiriir ah koobka qaramada Yurub. sidaa darteed haddii ay maanta Faransiiska garaacaan waxay noqon doonaan xulkii ugu horeeyay ee hal dufcad oo koobka qaramada Yurub ah wada adkaada 6 kulan oo xiriir ah. Faransiiska ayaa sidoo kale waxa uu tiigsanaya finalka koobka qaramada Yurub markiisii afraad halka Spain ay ku tala jirto markeedii shanaad. Spain ayaa sidoo kale waxa ay badisay 15 kulan oo kamid ah 19 kulan ee ay ciyaartay tan iyo bilowgii 2023 oo ah sanadkii tagay waana boqolleyda ugu wanaagsan ee uu sameeyo xul ka dhisan qaaradda Yurub. haddii aan dhinaca safafka laga yaabo eegnana Spain waa Unai Simon, Navas, Nacho, Laporte, Cucurella, Olmo, Rodri, Fabian Ruiz, Lamine Yamal, Morata iyo Williams. waxaa ka ganaaxan Spain Carvajal iyo Lenormand. dhanka Faransiiskana waa Maignan, Koundé, Saliba, Upamecano, Hernandez, Kante, Chouameni, Camavinga, Griezmann oo ah qawaar khibrad badan oo qaranka u saftay 134 kulan oo L'Equipe ay qorayso in laga yaabo ninkan oo kabtan xigeen ah in laga cuno safka koowaad kulanka Spain. waxaa soo raaci kara Kolo Muani iyo Mbappe. Maxamed Xaaji, Hadal Sama TV.